xukuumadda Somaliland ayaa si rasmi ah u fasaxday duulimaadkii shirkadda Fly Dubai maraya hay'adda duulista iyo madaarada Somaliland Umar Sayid Cabdilaahi oo maanta warbaahinta ugu warramay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in xukuumaddu ay dib u fasaxday duulimaadkii shirkadda Fly Dubai kadib markii ay shirkaddu buuxisay shuruudaha ay hore xukuumaddu ugu xidhay isla markaana ay heshiis kala saxiixdeen dawladaha Somaliland iyo Imaaraadka Carabtu waxa hay'adda duulista iyo madaarada Jamhuuriyadda Somaliland ay aad iyo aad runtii ugu faraxsan tahay inay heshiis la gashay dhigeeda civil aviation-ka ama hay'adda duulista Dubai heshiiskaas oo ku saabsan sidii loo soo celin lahaa diyaaradihii labada wadan u kala gooshayay muddada xayirnaa golaha wasiirada Jamhuuriyadda Somaliland oo shir gudoominayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland waxay go'aamiyeen 17 Oktoobar 2020 in diyaarad kasta oo fly carrier ama calan wadan sidata Somaliland markay ka howlgalayso ay dawladda Somaliland ama hay'adda duulista iyo madaarada ay heshiis la gasho hore waxa heshiis inoogu jiray diyaaradda Ethiopian Airlines waxaan ku faraxsanahay inaan halkan ka sheegnay diyaaraddii labaad ama wadankii labaad ee heshiis caalami ah la gala Somaliland Civil Aviation Authority inuu yahay Imaaraadda Dubai iyadoo halka heshiiskaas inuu ku jiray diyaaraddii Fly Dubai dib u bilowdo flaydadeedii dhammaan diyaaradaha kale ee wadamada laga leeyahay caalamiga ah iyagana waxaan ka rajaynayaa insha Allah danayn badan oo ay wadanka danaynayaan inay yimaadaan baa jirta waxaan rabnaa iyagana dhammaantood inay wadadaas kala soo maraan iyadoo madaarada Somaliland aan u qorsheynay inay noqdaan qaar geeska Afrika ka tilmaaman soo jiidanaya dhammaan macaamiisha iyo cid kasta oo danaynaysa reer Somaliland inay runtii ka howlgalaan madaaradeena waxaan ku faraxsanahay diyaaradda Fly Dubai horada way uga shaqeyn jirtay halkan waxay u xanimneen heshiiskaas uu ahaa heshiiskiina waanu galay labadii dawladood baa ka heshiiyay dhawaan insha Allah falaadada way bilaami doonaan dadkuna hadii jeer waxay isku khaldaan diyaaradaha business-ka ah ee dad leeyahay iyo kuwa dawlad ka wakiilka diyaaradaha business-ka ah waxa loo eega hadba duruufta jirta iyo route-kaasi inuu yahay route sax ah oo reer Somaliland ay u baahan yihiin si private ay u soo dalbadaan qof diyaarad leh oo private si caadi ah isaga soo dalban kara meel kasta laga lahaado duruufta jirtun baa loo eegayaa laakiin haddii diyaaraddu dawlad matalayso waxaanu ka rabnaa runtii heshiis laba geesooda oo labada civil aviation aad iyo aadna runtii waan ugu faraxsanahay Cabdikariim Shaawi telefishinka Bulsho Hargeysa abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell Dahab Plus oo ku fududeynaya isla markaasina ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo mar kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus qoonmaal islaam iyo fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya Islam fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama Islam una dir hal shan eber